kusoo dhawaada cashirkii sagaalaad iyo weliba Windows 10 cashirka sagaalaad waxaan kusoo qaadan doonaa hadduu Ilaahay idmo sida active looga dhigo start button-ka horta sida active looga dhigaa start button maxaa la yiraahdaa start menu iyo start button waa isku shay weeyaan sababtoo ah kor maxaa ku qoran start button halkan waxaa ku qoran start menu waa isku shay marka labadaas shayba oo waxa weeyaan start button marka waxaa laga wadaa calaamadan afarta gees leh oo computerkaaga ugu xigta dhinaca ugu hooseeya waliba ugu bidixeeya ayaa loo yaqaanaa start button marka start button sida active looga dhigo ayuu kuu sheegaya computerkani og marka koowaad waxaa leedahay muuska ayaa ku dhufan kadhaa muuska hadan ku dhufto oo hadda muuska hadan check si maxaa dhacaysa way noo soo furmaysaa active waa sidaas soo kale maxaa lagu samayn karaa window logo ayaa riixi kadhaa calaamada window logo oo u eg iyada laftigeeda calaamada u eg oo keyboardka waliba u dhaxaysa alt fn u dhaxaysa ama dhinaca controlka iyo fn ta xigta ama space-ka qoraal lagu kala fogay midda geesiisa ku dhagan baa loo yaqaanaa ayaad hal mar check siinaysaa markaad riixidid baris ay ku samaysid waxaa dhacaysa wuu ku soo furmaysaa saada u riixid way soo furmaysaa haday riixidina way xirmaysaa sidaas u samayn kadhaa sidoo kale waxaa samayn kadhaa controlka iyo skip ayaa isla qaban kadhaa controlka waa labada key oo dhinacna oo dhinaca bidix labadaba xiga oo muuska ama keyboardka labadiisa af ku yaala waxa loo yaqaanaa midna control midna skip midna labada af bay xigaan midba dhinaca midna waa adigu soo xigaa dhinaca ugu bidixeeyay midna meesha ugu shayso oo dhinaca ugu bidixeeyo xigaa labada marka hal gacan ku kooda qadan ka gacan kale way kala gaadhaan marka wakaas sidoo kale oo soo furmaya saddexdaas qodob ayaan u isticmaali karnaa marka start menu aan active ka dhigayno ama aan soo furin active macnaheedu waa maxay marka aad u riixidid shaashadan ii soo furanaysa ayaa loo yaqaanaa window start menu active waa sidaas okay sidoo kale waxaan rabnaa start menu taskbar-ka maadaama start menu ay taskbar-ka ka mid tahay taskbar-ka sidee loo xiraa taskbar maxaan ka wadnaa taskbar waa kan haddaan ku dul geeyo taskbar waa calaamadan weyn oo hoos taala calaamadan weyn oo dhinacan start menu ku leh halkan ada barnaamijka ku leh halkaana dhinacana notification area-da ku leh ayaa loo yaqaanaa taskbar waa ushan hoos oo jiidan baa loo yaqaanaa taskbar-ka sidee loo xiraa ayaana marka joognaa taskbar-ka sida loo xiraa hadaba maxaad tagaysaa taskbar-ka gudihiisa ayaad tagaysaa oo right click ayaad ku leedahay meel bannaan oo taskbar-ka ka mid ah oo icon aysan ku jirin oo meel jiitinta meel ka mid ah oo bannaan ayaad right click mouse-kaaga dhinaca midig ayaad ku jinaysaa kadibna waxaad dooranaysaa log meesha log ay ku qoran tahay ayaa hal mar mouse-ka check ku siinaysaa log quful weyn oo xiraysid maaha hadaba ila soco aan fiirino halkan hoos u galno hoos baan nimid taskbar waa ka meesha hadda mouse-ka ka muuqdo ee taskbar kadibna right click ayaan iri waxa ii soo baxday waxaan tirada badan uma baahni meeshan setting waxa ka koreeya log ee taskbar meesha hadda waxba check horteeda ma saarna markaan ku dhufano waxa dhacday waxa isbedel ma sameyn laakiin haddaan ku noqono meesha hadda oo right click dhahno maxaa aragtaa calaamad sax ah ayaa saaran markaas wuu xiran yahay markaan ku dhufano markaas wuu ka qaadan yahay markaasna wuu furan yahay markaan check saarno calaamad ay saaran tahana markaan wuu xiran yahay markaan ka qaadnana wuu furan yahay okay marka uu furan yahay maxaa samayn karnaa muusku kala baxbaxaya markuu furan yahay muusku isbedelaa marka macna iyada la tawo kala jiidmaysa taskbar-ku laakiin markuu xiran yahay waxba ma kala jiidmayaan maanta daqiiqada leedahay ma kala jiidmayaan marka muuska taskbar-ka sidaas ayaa wax looga bedelaa oo change lagu sameeyaa ama loo galshaa log ayaan ku xirnay kana furnay marka waa ku xirid iyo ka furid bis right click baad leedahay calaamada sirtaa oo log ee taskbar ayaa hal mar ku dhufanaysaa wuu furan yahay log ee taskbar markuu calaamad yar ka horeyso wuu xiran yahay markaan hadeertaana wuu furan yahay hada waa maxay wuu furan yahay tan ku dhufatidna waa maxay wuu ku xiran yahay sidaas ayaa taskbar u xirata waayahay ibankana waa ka gudbaynaa taskbar-ka waan xirnay waxaan aadi doonaa hadduu Ilaahay idmo sidee loo dhaqaajiyaa taskbar-ka hadduusan xirnayn qufulka hadduu ka qaadan yahay taskbar-ka sidee loo dhaqaajiyaa meeshaan waxaa ku jira condition ah if it is not log hadduusan xirnayn
ولا دقاقين كرا دوس حرنين هدو حرين لكن ولا دقاقين كرا لكن هدو حرين يهي لما دقاقين كرا معناه سيداس ويان marka waxaan rabnaa inaan dhaqaajino marka koowaad muuska ayaan dul geynaynaa oo task barka ayaan dul geynaynaa marka task barka dul geyno oo waxaan ku sameynaynaa ma dhixdiisa dhigaynaa kadibna waxaan sameynaynaa move baan ku sameynaynaa task barka waa jiijiideynaa oo shaashadan qaybta kor waan geyn karnaa dhinacan bidixna geyn karnaa dhinaca midigna geyn karnaa afarta geesba sida loo geeyo hadaba aan aragno kumeerka dhixdiisa imow kadibna task barka looga ka qaado loogaani waa inuu ka qaadid marka waa ka qaadnay kadib dhixdida mid muuska dhakab siiyay waa wada hadal waa sitayaa hadda uma jeedo laakiin jiid mitaankiisa dhinaca uu foofulo dhinaca bidix ayuu tagay kor buu tagay dhinacaas uu tagay waa soo jeeday dhinacaan imaad haba dhinaca kasta uu ka tagaya dhinaca kasta muuska u wareejisid buu tagaya soo ma jeedo start button task barka waa calaamadani hadda xogaa noolayno kala jiidno waxa dhacaysa haba meesha rabto waa tagaysa waa u jeedaa dhinacan hada salis waa weynin karna xogaa marka haba dhinacaas waa tagaysa weyninta noo socotaaye saas ayaad u sameyn kartaa inaad move sameysid haba dhinaca rabto u rari kartaa hadii kumeerkaaga marka ay ka guurto dhibaato ma leh looga ka bixi tartiib soo jiid hoos soo dhig hadii sidaan kaaga ay u kala baxsan tahana qaabka loo yareeyay hadda ayaan qaadan doonaa marka hadii aad kala move ku sameysay sida size-ka loo saaro how to resize sida size-ka looga bedelaa task barka by using oo isticmaalayo muuska oo isticmaalayo sida task barka sidee size-ka looga bedelaa hadaba sida size-ka looga bedelo maxaa leedahay task barka ayaa dul saaraysaa task barka meesha afkiisa ku dhamaado ayaad muuskaaga dhigaysaa kadib markii muusku isbedelo oo calaamad afar gees uu noqdo oo laba madax leh oo yaro fiiqan ayaad waxa sameynaysaa in aad muuska dhakab siisid kadibna korna u kala jiidid hoosna u kala jiidid kor iyo hoos midkoodna u wadid okay hadaba aan ogaano halkan ayaan nimid markuu muuskeena meeshan dushiisan geynayna dushiisa macnaha markay calaamad isbedesho aan soo dhaweeyay inaad u jiidin bal laga yaabaa marka halkan joogno task barka waa kan dhixdiisa waan joognaa waxba saameeyna male markaan xogaa kor u dhigno intaan ka dhex bixin muuska wuxuu noqonayaa laba fiiq uu noqonaa marka labadaas fiiq noqdo waa haduusa loo ku jirayaa muuska ay dhakab siinaysaa kiligtiisa caadiga ama farta dhinaca bidix ee muuska dhakab siinaysaa kadibna waad kala jiidaysaa waa kala fidinaysaa shaashada dhinaca uu qarin rabaa soo ma jeedo hadaan fogeyno waxa dhici doonta saasa shaashad muuskan intaan dhan waa task bar weyn badan leeyahay kumeerka ku sameysatay oo shaashada 3 meelood marka loo dhigo 5 meelood marka loo dhigo 2 meelood ayuu qaadan karaa hadaba masana waa soo celinaynaa isla xorta afkiisa meesha aan saarno xorta meesha ku dhamaado markii muusku calaamad san laba fiiq u noqdo ayaan dhakab siinayaa kadibna waa soo jiidayaa ilaa uu meeshiisa ku noqdo sidaas ayaa muuska task barka sida resize loogu sameeyo iyo sida loo move gareeyo labadii waa sheegnaa hadda marka dhinaca soo geeyno uu weyn yahay waxa sameeynaa afkiisa xorta meesha geenaysaa waana yareynaysaa kadibna hoos u soo jiidaysaa si uu kaaga guuro mar dambana log ayaa saaraysaa task barka sidaas ayaa u habaysatay intaas ayaan ku soo koobaynaa casharka 9aad oo aan task barka iyo hawlihiisa uga sheekaynay waa inoo casharka 10aad hadduu Ilaahay idmo kulan dambe xiiso leh